mudanayaal iyo marweyn waa sidii xaalka Itoobiya maalmahan la soo dhaafay maxaa ka socda gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya. mudanayaal iyo marweyn nagu soo biiro subscribe noo saara kanaalka haddii uusan horay kuugu saarnayn hana kiiloobin inaad dhahdo like haddii uu ku qanciyo muuqaalkan. gobolka Tigreega wuxuu dhacaa waqooyiga dalka Itoobiya waxayna tiradooda gaaraysaa dadka Tigreega ah 5 milyan waxayna tirada guud ee dalka Itoobiya ka yihiin 6%. inkasta oo ay tiro ahaan qowmiyadani yar tahay haddana waxay ku dhawaad 30 sano haysay xukunka dalka Itoobiya markii uu bilaabmay dagaalkii looga soo horjeeday kaliyadalihii xukumayay dalka Itoobiya sanadii 1970 ilaa sanadii 1980. waxay jamhadii Tigreega ee TPLF ku soo baxeen inay hogaamiyaan isbahaysiga la wareegay xukunka wadanka Itoobiya sanadii 1991. isbahaysigaas oo magaciisu ahaa EPRDF wuxuuna ka koobnaa 4 xisbi siyaasadeed oo u taagnaa qowmiyado iyo deegaano. Malla Zanaawi oo Tigray ah ayaa wuxuu qabtay hoggaanka dalka Itoobiya sanadii 1991 wuxuuna hogaaminayay dalka Itoobiya ilaa uu ka dhintay sanadii 2012. intii hogaaminayay Itoobiya wuxuu Malla Zanaawi ka dhigay dalka Itoobiya dal dhaqaale ahaan koraya marba markay ka dambayso, laakiin wuxuu xabsiyadii ka buuxshay mucaaradkii ka soo horjeeday xisbigiisa. waxay xilligaas u ahayd xilliyadii ugu fiicneed dadka Tigrayga ah waxayna iskaga naaloonayeen hoggaanka Itoobiya. wuxuuna gobolkaani dhistay military adag waxaana ku yaala gobolkaani saldhigyada ay yaalaan hubka ugu badan ee dalka Itoobiya. markii ay bilaabmeen banaanbaxyadii looga soo horjeeday dowladda Itoobiya waxay soo socdeenba waxay miro dhaleen sanadii 2018 xilligaasi oo uu xukunka la wareegay Abiy Ahmed. Abiy ayaa durbadiiba wuxuu xabsiyada ka sii daayay dadkii mucaaradka ku ahaa ee la xiray markii uu talada hayay xisbiga TPLF. wuxuuna Abiy sidoo kale xiray saraakiil badan oo xisbiga TPLF ka tirsan. wuxuuna Abiy heshiis la galay dalka Eritrea oo ay si xun u wada dagaalameen xisbiga TPLF xuduudna la leh gobolka Tigreega. wuxuuna Abiy Ahmed ku guuleystay biladda nabadda adduunka. sidoo kale waxa uu xiray ninka hogaaminayay qowmiyadda ugu dadka badan Itoobiya ee Oromada, Jawahir Mohammed. isla sanadkan gudihiisa Itoobiya waxaa lagu dilay fanaan dadka Oromada aad magac ugu dhex lahaa, waxaana magaalada Addis Ababa ka bilaabmay banaanbaxyo looga soo horjeedo dilka fanaankaasi loo geystay. sidoo kaleeto Abiy waxa uu dib u dhigay doorashadii dalka Itoobiya koronaha awgii, waxaana arrinkani ka soo horjeestay maamulka gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya. wuxuuna qabtay doorasho gooni ah waana la isdoortay, waxayna dowladda federaalka wax kama jiraan ku tilmaamtay doorashada halkaasi ka dhacday. waxaa bishii Oktoobar ee la soo dhaafay laga jaray dhaqaalihii la siin jiray gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya. maamulka Tigreega oo arrintani ka carooday ayaa iyaguna ku dhawaaqay in ciidanka federaalka ka baxaan gobolkooda. waxay kaloo amreen in la xiro hawada gobolka, waxayna ciidamo Tigray ah u goosteen dhanka ismaamulka Tigreega iyagoo sheegay inay difaaci doonaan gobolkooda. gobolka Tigreega ciidankiisa ayaa la sheegay inay aad ugu tayo fiican yihiin ciidanka federaalka dhexe ee dowladda, waxayna haystaan hubka ugu badan ee yaala dalka Itoobiya. laakiin dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya ayaa waxay ku soo rogtay gobolka Tigreega inaysan tagi karin wax duulimaad diyaarad ah, waxaana sidoo kale laga jaray gobolka Tigreega isgaarsiinta. waxaa kaloo jira in loo xil saaray guddiga xaalad degdeg ah inay cunaqabateyn saaraan ismaamulka Tigreega, waxayna guddigan isku dayayaan in hubka dhigis ku sameeyaan dhammaan hay-adaha ammaanka iyo in la xadido isu socodka gaadiidka marka laga reebo kuwa lagama maarmaanka ah, iyo in bandow lagu soo rogo magaalooyin dhowr ah, iyo in la joojiyo dhaqdhaqaaqa hubka, iyo in sharciga la horgeeyo cid waliba oo looga shakiyo in qallaaso ay ka wado dalka Itoobiya. bilaawashada dagaalka Itoobiya iyo gobolka Tigreega. 4 bishan maalintii Arbacada ee la soo dhaafay wuxuu amray Abiy Ahmed in dagaal lagu qaado gobolka Tigreega, wuxuuna jawaab u ahaa weerar hore oo ay ku soo qaadeen ciidanka Tigreega saldhig ay lahaayeen ciidanka federaalka Itoobiya. haatan koobo badan ayay ciidanku isku horfadhiyaan.
Warbaahinta taageersan dowladda Itoobiya iyo tan ismaamulka Amxaarada ayaa tebinaya in ciidanka dowladda Itoobiya guulo la taaban karo ay gaareen, isla markaana ay qabsadeen 3 ka mid ah magaalooyinkii ugu waaweynaa gobolka Tigreega, waxaana ka mid ah magaalooyinkaas Humera, Wigod iyo Tigera. Waxaana si wadajir ah la iskugu raacay ayaa la leeyahay in ciidamada dowladda ay qabsadeen deegaanadaasi, waxaana warbaahinta Suudaan, tan Eritrea iyo tan Itoobiya ay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka Itoobiya guulo la taaban karo ay ka gaareen dagaalka. Madaxweynaha ismaamulka Tigreega ayaa yiri isagoo la hadlaya telefishinka Tigreega waxa ay haystaan awood ay ku burburiyaan cadowga fog iyo kuwa soko iyo kuwa nabadda diida ee dagaalka iclaamiya. Dr. Abiy Ahmed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in guulo la taaban karo ay ka gaareen dagaalka. Waxa kale oo uu sheegay in ay ciidamada federaalka Itoobiya duqeeyeen baqaaro hub uu keedsan yahay ciidanka Tigreega. Dr. Abiy Ahmed wuxuu isku dayayaa inuu dhiso Itoobiya ay dowladda dhexe awood leedahay, laakiin waxaa si weyn u diidan qowmiyadda Tigreega. Sidoo kalena gobollada kale ee Itoobiya ma rabaan in ay dowladda dhexe ay yeelato awood dheeri ah, laakiin waxaa la moodaa in ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed uu tijaabinayo inuu ku hirgeliyo fikirkiisa qaab xoog ah. Intaana waxa inoogu eg barnaamijkeena aan idin soo diyaarinay. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.